بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوش حسين ودماتين السلام يا ملك صندوق داونيس. أنت بدن دليرada iyo dadka doonaya shirkadaha ka shaqeystaan ama markay doonayso dawladdu in ay maal geliso dhalinyarada waxay focus ka saaraan kaliya technical-ka iyo lacag la qaado. laakiin waxaan la wadaagi doonaa qodob ay muhiim tahay qof kasta oo doonaya inuu business ka shaqeeyo ama inuu lacag sameeyo inuu muhiim tahay inuu ogaado. horta lacagta marka la doonayo la sameeyo ama shirkadda marka la doonayo inuu la furo waxay u baahan tahay qofku inuu ogaado boqolkiiba 95 guushu waa mindset-ka waa caqliga. marka adiga markaad doonaysid oo haddaan dhalinyaro tahay oo doonaysid inaad business ka shaqaysatid ama haddii aad shirkad leedahay oo doonaysid inaad shirkaddaada kor u kacdo ama haddii aad tahay dawladdu oo doonaysid dhalinyaradaada inaad maalgelisid waxaa horta loo baahan yahay in laga tababaro mindset-ka. maxaan saa u leehay tusaale ahaan qofka waxaa la siiyey 5 milyan laakiin ma yaqaano sida loo iibgeeyo cabsoonayaa sidii waxa weeyaan suuqa loo gelay ma yaqaano 3 sano kadib qofkii waxaad arkaysaa waxa weeyaan saaray lacagtiina soo celin sababtuna waa maxay focuska waxaa la saaray kaliya baahida qofkan focuska lama saarin inuu qofkani horta mindsetkiisa iyo caqliyadiisa inuu sax marka business la galayo ama uu doonayo in la sameeyo lacag waxaa loo baahan yahay 3 shay qofkan laga hubsado ama qofka shirkaddan iska leh inuu 3 shay uu si fiican u hubsado ama qofka doonaya inuu shirkad aasaaso uu lacag sameeyo uu dadka u soo gudbiyo waxaan ka dhex buuxaya waxaa looga baahan yahay 3 kow horta waa inuu caqliyan ahaan mindsetkiisu dhisan yahay markaan ku leeyahay mindsetkiisu dhisan yahay macnaha aqoonteedii cilmigeedii inuu leeyahay 2 macrifo inuu leeyahay waxaan u galay 3 qodobka saddexaad isaguna muhiima inuu xirfad sax yahay 3 qodobka ugu muhiimsan aabaha u ah waxa weeyaan waa qodob ku saabsan mindset-ka. waxaad weydiin kartaa su'aal oo runta mindset maxaa ka wadaa tusaale ahaan anigu markaan adigu soo bandhigayo aqoonteedii cilmigayga balka waran haddaan baqayo balka waran haddii kamaradan ka baqayo fiidiyooda kuma soo gaadheen waxaan waa inuu ku soo gaadhay abadan laakiin hadda waxaad dareemaysaa adigani daawanaya waxaad dareemaysaa in mindset-kayga aan soo dhisay inaan waxa weeyaan awalan aan ka baqaynin kamarada nimka lama hadlayo adigaan si toosa kula hadlaya daawanaya oo haddii aad tahay nin dhalinyaro ah oo doonaya inuu business bilaabo ama aad leedahay shirkad oo lacag doonaysa inaad ka samaysid ama aad tahay qof dawladda u shaqeeya ama wasiir ah oo doonaya dhalinyarada inuu amaahiyo lacag waxaan u baahanahay haddaba si dhalinyarada iyo shirkadaheenu ay u gaadhaan meel dheer in mindset-ka qofkaan ka dhiso mindset-ka waxaa ugu muhiimsan waxa weeye qofka horta waa inuu maskaxiya ku hayo lacagta uu ka rabo business-kan aad doonaysa inaad geshid tusaale ahaan doonaya inaad anigu ka shaqaysto inaad coach xagga awareness ayib coachnimada maxaa ka wada maxaad ka rabtaa waxaan ka rabaa in aan u gudbiyo aqoonteeda cilmigayga dadka waxaan ka rabaa inaan ka helo lacag anigu noloshayda aan ku dhiso waa inay clear tahay waa inuu cadyahay kadibna maxaa layga baahan yahay inaanan ka baqin hawshii aan bilaabo sababtoo already waxaan aaminsanahay inaan qiimo iyo value aad u sarreeya inaan kuu soo gudbinayo haddaba dadku marka ay yimaadaan ay weydiiyaan talooyinka markaa waxaa soo baxaysa qofkani inuu gudaha ka baqayo inuu waxyiin ka baqaya inuu suuqii waxgeeyo ka baqaya inuu shirkadiisa intuu iibgeeyo dhado shirkaddan aniga iskale waxaan ba iibsaa 1 2 3 waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo inta laisku keeno dukaan loo furayo dukaankii 3 bilood ama 4 bilood kadib uu kacay markay ku yimaadaan aad guulaysatid ma yaqaanaan sida wax loo iibiyo ma yaqaanaan yani way baqayaan inay wixii iibiyaan inay qaarkood ka xishoonayaan inuu waxa weeye dukaankii dhex fadhiisto oo waxa weeyaan wax xidho uu suuqa yimaado oo alaabtii iibiyo marka waxaan u baahannahay inaan siino dhalinyarada koorsooyinka dhisaya ama kobcinaya mindset-ka ama garaadka haddaba haddii barnaamijka aad u baahantihiin ama talin aad uga baahantihiin brograamada ku saabsan kobcinta garaadka qofku intuuna business bilaabin waxaan ku hayaa dhowr kooris oo kaa caawin kara arrimaha xasuusnaada in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu